ciidamada xoogga Puntland ee BSF ayaa gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari toddobaadyadii u dambeeyay waxa ay ka sameynayeen howlgallo ballaaran oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee magaalada. ciidamadan oo howlgalladooda fulinaya habeenkii iyo maalintii waxa ay baaritaano kala duwan ku sameynayaan dadweynaha iyo gaadiidka iyagoona si aad ah uga howlgalaya suuqa weyn ee magaalada Boosaaso iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa iyagu ka falceliyay sida ay u arkaan howlgallada kala duwan ee ciidamada ammaanku ay ka wadaan gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. ruuxaantii waxa waaye amnigu waxa kala yiraahdo waa nolosha bini'aadanka weeye hadduu amni jirin waxa waaye yani waxay ka dhigan tahay inuusan macnaha nolol jirin marka yani aad baan u soo dhaweynayaa maaragtay hawshan waxa way ciidamada Puntland ay wadaan dhibaato xun waa ka iibqi jiraan marka baska raacay waa jeesay jiraan waxaan soo jiray soo adigu waxa ka baqi jiray waxa kan moobilada dafaya oo hoog iyo baayo balanbalka waanu xaafadiga ka seexan kar weyn oo ka harsan kar weyn qof weyn hada waxa lagu amni garanaya xabad moobila oo naftiisa lagu belgeeya waxa soo kala baan arki jiray maanta waa xabbi weey waxa ay aad iyo aad u mahadsantihiin shaqo fiican baa shaqo qaran baa haysaanin waxa ay shacabka wax ugu baaqaya ciidamada la shaqeeya anigu magacayga Maxamed Xuseen Warsame aad baa ugu faraxsanahay ciidamada Puntland ammaanka sugayo maanta awal xagga ahaan jirtay jaanka oo gawaari miran ahaan jirtay duurkii la mari jirin aad baan u soo dhaweynayaa ciidamada Puntland sida amaal darra awal waxay ahayd amaal xiriir badan oo gawaarin badan oo jaab badan isbedelka wuu jiraa markii hore ciidamadu inta ka maqnaan waska jaamjaan baabuur badan iyo macnaha anaga laftirkeega dib waa ku qabnay baabuurta meesha waa laami aad iyo aad anaga laftirkeega jid baan fariisanaa ciidanka hadda soo galay magaalada oo labada gees BSta iyo qolada BMBFta labaduba waxay u baarayaan ciidanka dadka shacabka si fiican oo hufan oo xushmad mudan wax dhima oo geysanayaan ma jiraan dareenkay markaan cabiro waxaan u arkaa dareenkaygu inuu aad iyo aad u fiican yahay iyada oo amniga meesha ka jira oo dareenkaygu aad iyo aad ugu sareeyo aniga oo taageeraya ciidanka amniga meesha ka jira iyo nabadgelyada iyo ciidanka sugitaanka amniga sugayaan iyo nidaamka kala dambeynta meesha ka jirta halka waxa dhici jiray markaan gawaarida ka raacayno in teleefanadan la kaga dafo in lagu khashkhashaado nimanka basaska kireeya inay nagu khashkhashaadaan runaantii aad baan ugu faraxsanahay hadeer waxa soo dhan ciidanka baa naga suuliyay aad baan ugu faraxsanahay maanta waxa weeye wali waxa inoo socda operationkii howlgal ee xaqiijinta amniga mid ka mid ah saraakiisha ciidamada BSF oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankiisa sheegay in shacabka looga baahan yahay in wada shaqayn ay la yeeshaan ciidamada ammaanka si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee magaalada Boosaaso damiirkoodu shaqeeyo ciidamada gacan la siiyo baanu aad uga codsanaynaa runtii bulshada waxaanu ka doonaynaa rag iyo dumar inay shaqeeyaan waxa la dilayaa waa walaalkood waa wiilkoodii waa odaygoodii waa ardaydii weeye gabdhahana waa loo soo dhigan doonaa marka inamada iyo odayaasha intaba marka la waayo runtii waa loo soo dhiganayaa waxa weeye kambeynkan wuu socon doonaa ilaa guri to guri ilaa hurdooyinkaanu gallo ka xaqiijinno maxamed xirsi jabra raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland magaalada Boosaaso.